wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle iyo wafdiga hogaaminaya oo booqasho shaqo ku jooga dalka Turkiga ayaa kulamo kala duwan la yeeshay madax iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga waxaana ku wehelinayay safiirka Soomaaliya ee Turkiga Jaamac Abdullaahi Caydiid iyo qaybsamaha safaaradda ee arrimaha tacliinta hidaha iyo dhaqanka Cabdicasiis Cabdiraxmaan wafdiga wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ayaa kulamo kala duwan la yeeshay wasiirka waxbarashada ee dalka Turkiga Ziya Zeljoq madaxa hay'adda tacliinta sare ee magaceeda loo soo gaabiyay YOK Dr. Siraj iyo waliba madaxa hay'adda arrimaha diinta u qaabilsan dowladda Turkiga Dr. Salim wasiir Cabdiraxmaan ayaa markii kulamadu ay soo dhamaadeen ka hadlay waxyaabaha ka soo baxay kulankeena maanta wuxuu ka bilowday kulan aan la qaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda Turkiga oo runtii aan ka wada hadalnay arrimo badan oo labada wasaaradood ka wasaarad ahaan runtii waxaan u sheegnay heerka waxbarashada dalka uu marayo waxaan u sharaxnay siyaasadda wasaaradda iyo heerarka u dambeeyay aan ka wada hadalnay sida ay si lamida waxaan dib eegis ugu sameynay heshiisyadii u dhaxeeyay oo runtii hore u saxiixay wasiirka hore wasaaradda waxbarashada kaasoo la saxiixay 2017 heshiisyadaas waxaa ku jiray in labada wasaaradood ay magacaabaan laba guddi oo labada dhinac kala socda maanta waxaan isla garanay in ayadoo halkan guddigii la diyaariyay dhankeena ayagana xaqooda ay diyaariyeen guddiyadaasna ay kulmi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo bisha June ama July sida hadba inoogu waqtiga noogu saamaxo kuwaas oo ka kooban guddiyo farsamo ka kooban labada wasaaradood kadibna ay ka wada hadli doonaan waxyaalaha iska caawinayaan ama labada wasaaradood laga kaalmeynayo gaar ahaan anaga wasaaraddeena waxyaalahan u baahanahay in ay nagala shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada Turkiga runtii kulankeena wuxuu ahaa kulan inta badan xooga saarayay sida ardayda Soomaaliyeed kuwa halkan jooga wax ka barta iyo kuwa dalka joogaba ay runtii uga faa'iideysan lahaayeen deeqaha waxbarashada iyo guud ahaanba barnaamijka waxbarasho ee dowladda Turkiga ee dowladda Soomaaliya garab taagan tahay kadib waxaan kulan la yeeshay gudoomiyaha hay'adda tacliinta sare oo asagana runtii aan ka wada hadalnay maadaama ay ayaga lahayn wasaaradda tacliin sare oo hay'addan ay tahay hay'ad u qaabilsan sidii looga wada shaqeyn lahaa arrimaha tacliinta sare ku saabsan waxaa jiray arday badan oo Soomaaliyeed oo halkan wax ka barta in caqabad soo waajahday taas oo ahayd maadaama jaamacado badan dalkeen ay ka jiraan wadankaana runtii aysan wali helin liis rasmi ah oo ku saabsan oo ay waxaan dhiban tahay in arintaasna wax laga qabto waxaan isla garanay in ardada hadda jaamacadaha dhigata oo jaamacadahooda aysan ka diiwaan gashanayn hay'adda tacliinta sare dalkan in loo ogolaado waxbarashada inay sii wataan arday badan waxaa jirta ilaa iyo 50 ku dhow arday oo daraasad inta badan master iyo PhD dhigta oo daraasada ay ka istaagtay waa iga aqbalay gudoomiyaha hay'adda tacliinta sare in barnaamijka uu ogolaado waxa kale oo iga aqbalay in jaamacadaha hadda ay dhigtaan warqado loo qoro si gaar ah uu uga ogolaaday inta la soo cadeynayo jaamacadahaas ama runtii aan cadeynayna ka wasaarad ahaan in ardayda Soomaaliyeed waxbarashadooda ay si dhameystirtaan ay saameyn ku yeelan arintaasna wuxuu kaliya loo yeelay shacabka Soomaaliyeed ayagoo u fiirinaya xaaladda ay ku jiraan arintaasna waa soo dhaweyn runtii waana uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha marka kadib waxaan kulan la qaadanay hay'adda u qaabilsan dalkan arrimaha diinta run ahaantii ayaga laftooda si la socotaan waxay wada shaqeyn la leeyihiin annaga oo wasaaradda waxbarashada ah iyo wasaaradda u qaaftay arrimaha diinta annaga dhankan ka soo galina waxay tahay waxa ay leeyihiin iskuulo waxay gacanta ku hayaan iskuulo oo ardada yar oo ah ibtidaa'iga oo culuumta diinta lagu baro iyo tanaawiga ama dugsiga sare kuwaas oo runtii qaarna ay Soomaali ku yaalaan ardayda qaarna halkan ay ka dhigtaan marka arrimo noocaas oo badan ayaan ka hadalnay waxaan kaloo ka wada hadalnay in ay soo jeediyeen heshiis is-afgarad oo u dhaxeeya labada institution ama labada dawladood in la helo oo ay mataqaanaa ay barnaamijyo badan ay ka shaqeyn doonaan ay ka mid tahay in iskuuladaasna sii xoojiyaan sida ay si lamidna ay heshiis la galaan wasaaradda awqaaf Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish magaalada Ankara